horeysa maadaama suulkan waxa weeye muhiimadda koowaad ay tahay walaalaha cusub waxa weeyaan doonaya inay ku soo biiraan ama doonaya caawa inay wax badan ka bartaan shirkaddan Leafgood waxa ay tahay waxaan ka bilaabaynaa shirkaddan waxa ay tahay iyo meesha ay ku taalo iyo waxa ay qabato ayaan ka bilaabi doonaa sida qoraalka uga jeedaan saashada shirkaddan waxay ku taalaa waddanka Mareykanka waa shirkad direct sales waxa laga wada waxa weeyaan waa shirkad qofka maxaan ku yiraahdaa memberka ah iyo shirkadda aan cidna u dhaxaynin yani wax middleman ah ama qof saddexaad oo dhaxeeya ma jiro hadaa maanta u baahatid inaad product gadatid ama waxa weeyaan wax dalbatid cid ma aragtay dilaal oo dhaxaysa ma jirto shirkadda marka focuskeeda iyo ujeedkeeda waxa weeye inay ka shaqeyso badqabka iyo maxaan ku yiraahdaa caafimaadka bulshada waa waxa ay isku xayeysiinayso ah inay soo saarayso alaab qiimo jaban oo tayo leh taasoo waxa weeyaan caafimaadka iyo badqabka bulshada waxa weeyaan u leh faa'iido waaya shirkadda marka missionkeeda ama ujeedkeeda waxa weeye sida anigu hadda carabaabayo carabkan ku dhuftay to help people to get healthy and stay healthy dadku inay caafimaad helaan oo ay ahaadaan kuwa caafimaad qaba ayagoo markaas aan ku bixinaynin dhaqaale badan ayagoo markaas uga baxaynin waa waxa shirkaddan shirkadaha kale waxa weeye ay suuqa arto in uga saarto ama ay uga saartayba shirkaddan waxa weeye waxyaalaha ay soo saarto ama productiga ay soo saarto waxa lagu sameeyay waddanka Mareykanka oo ayadu ay ku taalo waxa ansixiyay maxaan ku yiraahdaa shirkadda loo yaqaan GMB oo ah shirkad maxaan ku yiraahdaa xagga productiga soo saarkooda iyo tayadooda waxa weeye ku shaqo leh sidoo kale waxa weeye shaybaarka loo yaqaano maxaan ku yiraahdaa Alta Labs waa shaybaarada loo yaqaano oo shaybaara caan oo waxa weeyaan la yaqaano ah ayaa waxa weeyaan productigan tijaabiyay oo ka saaray wax kasta oo waxyeello leh waxaan doonayaa marka waqti yar inaan qaato wax badan aan sharaxo marka waxa weeyaan meeshii inaa fahmin oo kale insha Allah hadaa fahantay intaan soo maray war mar ii soo qora fadlan waayahay shirkaddan waxay soo saartaa 15 product oo kala duwan ayay soo saartaa sida halka ay uga jeedaan tan waxa la yiraahdaa super reds tan waxa la yiraahdaa super greens aminos maxaan ku yiraahdaa yani 15 ka product oo kala duwan oo midda kale waxa weeyaan tayadiisu ka sareyso ayay soo saartaa shirkaddan marka productigan waxyaalaha marka ay tarayaan ama faa'iido waxa weeye ay leeyihiin waxa weeye men's health oo ah caafimaadka maxaan ku yiraahdaa xagga ragga nutrition oo ah xagga nafaqadii women's health oo ah maxaan ku yiraahdaa haweenka sidoo kale caafimaadkooda waxa weeyaan product wax ka taraysa oo caawinaysa marka waxa weeyaan hadda halkan fiirino kale waxay leeyihiin skin care yani daryeel jirka xagga jirka oo kale ama ha noqoto jir qaleelkii ama ha noqoto dildilaaci يعني برودكت كاميدا ayaa waxa loo isticmaalayaa skin care kaas loo isticmaalayaa sidoo kale waxa weeye immunity oo ah xagga maxaan ku yiraahdaa difaaci jirka oo kale ayaa wax ka tari doontaa maxaan ku yiraahdaa productigaas isticmaalkoodu body cleanse oo ah maxaan ku yiraahdaa jirka inay ka saarto wasakhdii iyo waxyaalaha maxaan ku yiraahdaa waxyeeleynayay ama antioxidant wax la yiraahdo kale tusaalahan inay u dhaqmaan productigan oo markuu qofku isticmaalo maxaan ku yiraahdaa waxaas oo dhan ay ka caawin doontaa inay jirkii nadiifiso maxaan ku yiraahdaa antioxidant ay noqoto yani productigan waxa weeyaan product inaba aan caadi ahayn marka la fiiriyo waxyaalaha ay qabanayso waa waxa inaba aan caadi ahayn weeye hay ahaan sidoo kale weight management oo ah qofkii waxa weeyaan inuu miisaankiisa waxa weeyaan ama doonayo inuu isku kordhiyo miisaanka oo kale ama uu doonayo miisaanka inuu dhimo oo kale wuxuu isticmaalayaa productiga Leafgood ayaa noqonaya kuwa ka caawinaya oo ugu habboon noqonaya sidoo kale waxa weeyaan halka hadaan fiirino women's health hadaan fiirino anti aging oo ah waxa weeyaan qofkii tusaale ahaan kale waxa weeye da'da ay ka muuqatay asagoo da'diisa aan gaarin oo kale ama qofka asagoo da'aba haduu ma arka productigan isticmaalo in maxaan ku yiraahdaa dhamankiisa u dhaali doono oo waxa weeyaan ay simi doonaan
sidoo kale energy qof inuu ka helo ama ha noqoto cunno ahaan ha u noqoto ama energy maxaan ku idhahdaa waxa weeyaan dawo ahaan ha noqoto inta waxa weeyaan way ka caawinayaan productigan marka halkan waxaa leeyahay unmatched quality ingredients يعني عندنا لما wadaagtay waxa ku leeyahay عندنا lama wadaagto quality-ga anaga alaabteedu ay leedahay عندنا lama wadaagto oo gaar bay noo tahay waxay ku leeyihiin purest natural ingredients يعني waa product pure ah oo dabiici ah oo boqolkiiba laga sameeyay weeyaan يعني dawada marka la sameeyo waxay ka kooban tahay dhowr shay oo la isku geeyay caadi ahaan laakiin tan waa pure waa natural weeyaan taasoo markaas waxa weeyaan lagu kaydinayo meelaha ugu nadiifsan oo adduunka kamid ah yani waa meel nadiif ah oo maxaan ku yiraahdaa waxa weeyaan saxadeedii dhowraysa baa la dhigayaa ama lagu soo saara intaba world classic manufacturing facilities waxa weeyaan yani shirkadda soo saaraysa yani shirkaddu markay soo saarayso product manufacturing waxa isticmaalaya yani shirkaddii qayb kamid ah ay wax soo saaraysa maxaan ku yiraahdaa productigi sidaa daraadeed shirkad standard ah oo facility ama qalabkii looga baahnaa in la soo saaro productigaas tayadaas leh ayaa soo saaraysa productigan weeyaan marka waxay ku leeyihiin why sababta anaga macnaha maxaa nooga iibsanaysaa yani maxaa uga dawanaa shirkadaha kale why buy from us maxaa nooga iibsanaysaa productigan waxay ku leeyihiin very affordable yani waa wax jeebkaaga waxa weeyaan uu awoodo oo qiimo hoose leh weeyaan sidoo kale tayo sare leh يعني شيء مركو واحد قيمه سنة واحد ويريه هاي تيجي سنة أي سرّيسه واحد وياه واحد ويا ماركتينج واحد وقف على شغله وما أنت كتر تمام واحد وياه والشيء اللي جوين كره هذا تيجي وياه ready to ship internationally إن معناها واحد وياه لجين كره محن كده هذا ودن كسته أو معناها عالم كمدة إن محن كده هذا الدولة أنا برضو اتجاس واحد وياه لجين يو أو لجين كره الدولة ده بيقولي sidoo kale productiga marka isticmaashid waa kuwa waxa way isbedelkooda u muuqdo ama product results life changing yani productiga marka aad isticmaashid waa kuwa isbedelkooda u muuqanayo oo aad arki doontid weeyaan how do I order products yani see u dalbadaa marka wax way productigan see u dalbadaa order as a consumer or a member waxa ku dalbanaysaa adoo consumer ah ama member ah consumer tusaale ahaan kale waxa noqon karaysaa inaad intaad waxa weeye xafiiskii tagtid oo kale ama telefoonkooda aad wacdid oo kale in maxaan ku iraahdaa productiga aad heli kartid ama inaad taa member noqotid oo isdiiwaan gelisid inaad waxa weeyaan website-koodii aad ka dalban karayso marka consumers pay retail low prices consumers marka waxay bixinayaan qiimo aad u hooseeya ayay bixinayaan qofka member-kana wuxuu bixinayaa qiimo ka sii hooseeya ayuu bixinayaa oo hoos ayaan ku arki doonaa insha Allah leave good member save up to 75% compared to the products on the other network marketing companies يعني waxa weeyaan qofka maanta waxa weeyaan product ka iibsado leave good marka shirkadaha kale loo eego wuxuu lacagtiisa save gareeyay 70% halka hoose ayaan waxaan ku arki doonaa isbarbar lagu sameeyay productiga leave good ay leedahay iyo product ay leeyihiin shirkado kale iyo farqiga u dhaxeeyo saa u jeedaan super greens waxa iska leh leaf good ayaa iska leh price-kiisuna waa 18 productgan waxa iska leh shirkad kale tana waxa iska leh shirkad kale halka waxaad ka arki karaysaa marka farqiga u dhaxeeya price-ka ayaad ka arki karaysaa tay ahaan waxa way tan leaf good ayaa taya sareysa qiimahaana waa aragtaan waxa qiimo badan ama lacag badan productiga kale beesha taas la gadayo 69 taana ay tahay $18 waa arki karaysaa farqiga u dhaxeeya quality-na waxa weeye way uga sareysaa qiimana way uga jabantaa members pay less yani qofka memberka wuxuu bixinayaa lacag yar ayuu bixinayaa salahan kale hadda waxa qof marka adiga aan member tahay hadaa multivitaminkan aad dalbatid oo kale waxa laga siinayaa qiimo aad u yar 9.95 oo kale laga siinayaa marka retail price tahay laakiin 17.95 ayaa laga siinayaa marka maadaama adiga aan member tahay oo shirkadda member ka tahay taas way marka adiga waxa weeyaan 9.95 laga siinayo oo uga duwan tahay qofka oo retail ka ah sidee marka member loo noqonayaa
register with your sponsors link qofka adiga kugu soo casiimay linkiga marka leaf good waxa weeye aad ku soo biiraysid ama waxaan ku iraahdaa zoomkeeda waxa kugu soo casiimay linkigiisa ayaad qaadanaysaa ama asaga aad la hadlaysaa oo sida maxaan ku iraahdaa diiwaan gelin lahayd oo aad noqon lahayd member ama xubin aad shirkadda uga noqon lahayd waxaad ka bixinaysaa 9.95 to become a leaf good member يعني tan waxa weeye waa inaad sida bilaa isaga bixisaa 9.95 kan stay active paying your monthly membership يعني adoo $10 ama 9.95 ka la baxaya ayaad waxa weeyaan de leaf good account-kaagu active ku ahaanaya oo halkaas waxa weeyaan de kuna shaqaysanaysaa oo maxaan ku radaa dhaqaalihii iyo income-kii hadduu ahaan lahaa matrix-kii hadduu ahaan lahaa weekly commission-kii hadduu ahaan lahaa waxaas oo dhan yani account-kaaga inuu active ku ahaado ayaa waxa ku xiran inaad inta iska bixisid 9.95 kaas oo bilaha ah taas waa tii bilaha ahayd weeyaan dabcan leaf good affiliates marka leaf good affiliates waxa weeye yani inaad adiga suuqgeeyo noqotid oo marketer aad noqotid we also give you the opportunity to earn income with the most exciting conversation playing in the industry sidoo kale fursad waxaan kuu siinay inaad suuqgeeyo noqotid oo aad income ka samaysid adigoo marketing samaynaya marka affiliate benefits ka faa'iidooyinka marka waxa weeye maxaa kamid ah business center with 3 replicated websites yani waxa weeye 3 website oo yani isku dhafan oo kale website-kii waa yani website marketing tools-kii oo yani waxa weeye tools-kii ka caawinaya inaad marketing samaysid oo kale system-kii ku fududayn lahaay oo kale si online ama offline in maxaan ku iraahdaa lagu siiyo maxaan ku iraahdaa tababaro oo ay ku siiyaan dadka shirkaddan waxa weeye leaderska ka ah intaas oo dhan oo macnaha channels ayaad haysataa weeyaan shirkadda marka waxa weeye markaad dhaqaale uga samaysid waxaad dhaqaale uga samayn karaysaa in 6 different ways yani waxaad lacag ku kasbanaysaa 6 qaab oo kala duwan halkan hoose marka hadda akhrisid paragraph-ka hadda akhrisid wuxuu ku leeyahay xaqiiqatan waxaad samayn karaysaa 2047.5 bil kasta adiga oo qofna aan diiwaan gelin adiga oo aan qofna diiwaan gelin ayaa waxa samayn karaysaa maxaan ku rahdaa lacagtan adiga oo aan qofna diiwaan gelin ayaa inta samayn karaysaa adiga oo aan qofna diiwaan gelin ayaa samayn karaysaa wuxuu leeyahay waaya hadaba sida ay macquul ku tahay waxaan ka arki doonaa qaybaha dambe ayaan ka arki doonaa hadii alino sida ay macquul ku tahay hagaag هاي اوكي marka waa taas tan waxa way how to become an affiliate member yani affiliate member say ku noqonaysaa affiliate member waxa ku noqonaysaa inaad iska bixisid $40 iyo 9.95 ka inaad iska bixisid sorry kadaal buu iga noqday sorry halkaasaan joognay marka waxa weeyaan affiliate member waxa ku noqonaysaa inaad bixisid waxaan ku yiraahdaa $40 iyo 9.95 kii taasoo marka isku noqonaysa $50 adiga $50 ayaa waxa laga rabaa si aad u noqotid affiliate member oo shirkaddan waxa weeye member uga noqotid yani totalka laga rabo waa lacag $50 ah 40 kaas waa affiliate ah iyo 9.95 kaas oo membership hadaba waa kana 6 qaab oo lacagta looga sameeyay tan koowaad waxa weeyaan waa weekly waa guna isbuucla ah talabaadna waxa weeyaan matrix baa loo yaqaanaa oo ayana waa bille tanna waxa weeyaan matching bonus baa la yiraahdaa oo ayana waa bille tan afraad waxa la yiraahdaa retail baa la yiraahdaa retail commissions baa la yiraahdaa tan lixaad influencer bonus baa la yiraahdaa tan toddobaad diamond bonus pool baa la yiraahdaa waaya marka mid kasta waa dul istaagi doonaa oo maxaan ku yiraahdaa hoos ayaan ku arki doonaa tan marka weekly waxa weeyaan in qofkii waxa weeye si isbuucla ah wax uga heshid matrix-kana waxa weeyaan in maxaan ku yiraahdaa wixii dad marka adigu ahaysatid iyo wixii lagu hoos dhigay waxa weeyaan wax ka heshid tanna waxa weeyaan dadkii ma aragtay keentay oo director ku ahaa ina wax ka heshid marka qaabka ay noqonayaan hoos ayaan ku arki doonaa iyadoo oo table ah diyaarleen
marka tokobaad buu soo qaatay waxa la weekly fast start bonus ilaa levelkaaga tobnaad ayaad ka heli kadhaa yani lacag isbuucla ilaa levelkaaga tobnaad ayaa ka heli karaysaa oo waxay ku xiran tahay markastaba darajada adigu aad tahay tusaale ahaan oo kale wuxuu ku leeyahay earn from members and affiliates yani memberka iyo affiliate-kaba labadaba lacag ka samee oo qofku markuu member noqdo lacag baa ka samaynaysaa isdiiwaan geliyo sidoo kale markuu suuq geeyo oo dad qorana waxa weeye lacag baa ka samaynaysaa dadka marka waxa weeye adiga tooskaaga talaalan 50% ayaad ka samaynaysaa yani 50% ayaad ka helaysaa tusaale ahaan kale qofka hadda waxa weeye $50 isku diiwaan geliyay 50% waxa uu dhigantaa $25 ayaa waxa ka helaysaa qof kasta oo adiga waxa weeye aad toos u keentay ama tooskaaga talaalan sidoo kale wuxuu ku leeyahay waa inaad qualify yani waa inaad darajo gaadhaa si markaas waxa weeye commissionkan uu kuugu sii socdo ilaa iyo levelkaaga tobnaad ilaa levelkaaga tobnaad saa ma aragtay commission uga heshid waa inaad darajo gaadhaa marka qualify to earn from the referrals of your referrals waa inaad macnaha darajo gaadhaa si dadka aad keentay dadka ay keeneenba aad lacag uga samaysid waxaan dhan marka waxa weeye waxaan arki doonaa iyadoo ma garanaysaa table ayaa arki doonaa dee alle hoos ku arki doonaa halkaa marka waan ku sharaxaynaa waa kana qofka hadda u jeedaan waa unranked waxa weeye adiga tusaale ahaan wax darajo maad gaarin oo company-gan qofku wuxuu darajo ku gaaraa laba qof markuu toos saga talaalo ayuu wuxuu ku gaaraa darajada koobaad sidaa daraaddeed adiga markaa isdiiwaan gelisay oo company-gan ku soo biidhay haddaa hal qof oo keliya keentay qofkaas keentay waxaad ku yeelanaysaa $25 taasoo macnaheedu yahay 50% $25 oo taasoo macnaheedu yahay 50% ayaa ka helaysaa waayo dee qofkaas muxuu isku diiwaan geliyay $50 50% maxaa noqonaysaa 25 darajada koobaad oo company-ga la gaaray waxa loo yaqaanaa bronze marka aad noqotid qofka directga kaaga talaalan adiga oo adigu keentay waxaad ka helaysaa 50% qofka adiga keentay qofka uu sii keenana waxaad ka helaysaa 10% oo level 2gaaga weeye yani dadka adiga keentay dadka ay keeneen weeyaan darajada kale oo labaad waxa loo yaqaanaa silver qofka directga kaaga talaalan waxaad ka helaysaa 50% horta darajo kasta joog oo qofka adiga ka talaalan 50% weeye taas waa automatic weeyaan marka qofka adiga keentay qofka uu sii keeno oo level 2gaaga 10% baad ku leedahay level 3ga oo dadka keentay dadka sii keenay kuwa sii keenay saddexaan 5% level 4 ko dadka keentay iyo kuwa sii keenay kuwii afraad sii keenay 5% baad ku yeelanaysaa marka goal-digana waxa weeye intaas waxa lagu darayaa waxa ku furmaya level 5 sidoo kale waxa ku furmaya level 6 ayaa wax ka helaysaa weeyaan waa commissionka isbuuclaha weeyaan platinum markaad gaadhid ilaa levelkaaga 8aad ayaa laga siinayaa commissionka diamond markaad gaartid 10 levelski hadda la sheegay weeyo ilaa levelkaaga 10aad ayaad waxaad ka helaysaa commissionka la qaybsanaysaa yani commissionka ka helaysaa qaybta kale hoose 2/15 matrix monthly commissions kan waxa weeyaan all members are placed in the 2x15 matrix dhamaan qof kasta oo ku soo biiray company-gan waxa qof ayaa la hoos dhigayaa yani su'aalahan ka shaqada marka aad ku soo biidid waxa jira dad adiga ka dambeeya oo maxaan ku yiraahdaa shaqadan ku soo biiray oo waqtiga adiga isdiiwaan gelisay kadib isdiiwaan geliyay marka 2x15 kan waxa weeye yani ilaa diamond-ka ilaa darajada koowaad bronze-ha ilaa diamond-ka ayaa waxa weeye 15 levelskaas ayaa dad lagu hoos dhigayaa dadkaasna waxay ku buuxsamaan godad insha Allah ayagana wax way arki doonaa sooner you lock in the higher you will be markasta oo hore isku diiwaan gelisid oo company-gan hore ay ugu soo biidid waxa fursad u haysataa dad badan in lagu hoos dhigo maadaama company-gan wali uu cusub yahay oo hadda waxa way 3 bilood iyo wax lamida uu jiro oo waxa weeyaan xawla caadi ahaan iyo momentum caadi ahaan ku socdo waxa laga rabaa adiga company-ga markuu ku qanciyo oo baaritaankaaga aad sameeysid oo wax badan aad ka ogaatid inaad hore iska diiwaan gelisid si waxa weeyaan matrix-kaas aad ugu xisaabtantid marka matrix-kan ka hadlayna kan weeyaan hadiiba company-gan adiga intaad member ka noqotay oo aad ku soo biidhay oo aad cidna aad keeninba waana kor ku soo arkayna waxaan adoo qofna keenin ayaa 2000 iyo wax kale aad heli karaysaa marka company-gan hadaa wax way intaad ku soo biidid oo member aan noqotid oo $10 iskala baxdid
wuxuu ku leeyahay ilaa levelkaaga 12aad ayaan ka siinaa maxay dadku hoos dhigaynaa oo levelada marka goodkan waxay ku buuxsamaan oo tray ku buuxsamaan tusaale ahaan kala godka koobaad oo kale 2 ayuu ku buuxsamaa qof kan kana wuxuu ku buuxsamaa 4 kan ku xiga 8 16 32 64 128 yani levelskan wuxuu ku leeyahay ilaa waxa ku buuxsami karaysa levelka 12aad taas oo ku leeyahay lacagta ugu badan oo markay ku buuxsama ah heli kartana waa 2047.5 weeyaan marka qofku waxa wanaagsan marka inuu shaqeysto waayo marka soo aad shaqeysatay shirkadda waxaad ka caawinaysaa levelska hadda aan sheegay aan ku leeyahay level 1 wuxuu ku buuxsamaa 2 qof haddii adigu 2 qof aad keentid shirkadduna ay ku siiso dad kale dee levelada kale ku buuxsamaya sidaa daraadeed qofku waxa wanaagsan inuu marketing sameeyo oo waxa weeyaan uu hore u socdo oo marka marketing sameeysid darajana aad gaartid waxa ku badanaya goodkiina waa buuxsan karaysaa hore u buuxsamayaan oo shirkaddii waad caawinaysaa adiga daraja gaaraysaa commissionkaaga waa badanaya kan matrixkaaga badanaya yani qof waxaad noqonaysaa dhaqaalihiisu maartay oo kordhiya noqonaysaa laakiin haddaad tiraahdo aan ranki ba ahaanaya dee waa inaad iska sugtaa waxa weeye haddii 2 qof lagu hoos dhiga iyo haddii 5 qof lagu hoos dhiga iyo iska iimaanso marka bronze marka gaadhid oo kale ilaa levelka 13aad ayaa waxa weeyaan markuu ku buuxsamaya waxaad helaysaa lacagta hoos ku qoran oo ah $4,095 marka levelada dhan waa kuwaana levelkan silver marka gaadhid sana waxa weeyaan waa sidoo kale weeyaan oo waa ilaa levelka 13aad weeye markaad gaadhid maxaan ku yiraahdaa marka gold gaadhid waa ilaa levelka gold waa ilaa levelka 14aad diamond waa ilaa levelka 15aad waa anaga lahayn 2 times 15 matrixka waa anaga lahayn waa meesha ugu dambaysa diamond lacagta uu qaadan karo bishii waxa weeyaan $16,383 buu qaadan karaa markii godadkan ay u buuxsamaan oo asagu u buuxsado oo company dad uu siiyo oo godadkan wada buuxsamaan oo tirada lagu talagalay ay soo gasho ayuu inta helayaa weeyaan marka intaan waa in yaroo kamida weeyaan laakiin dee qof diamond gaaray waxyaaluhu heli doona insha Allah waa arki doonaa adinka yaabi doona insha Allah inaba caadi ma making bonus marka waxa weeye 5 generation deep yani 5 level oo kamida dadkaaga ayaa lacag ka heli karaysaa weeyaan marka aad maxaan ku yiraahdaa making bonus aan ka hadlayno waa arkaynaa marka mid kasta soo yahay wuxuu ku leeyahay marka ka hel 50% dadka adiga tooska kaaga talaalan oo tusaale ahaan kale adiga hadda waxa weeye cabdi keentay cabdi hadduu $100 bishii shaqeeyo $50 ayaa shirkaddu adigu ku siinaysaa cabdina 100kiisii buu qaadanayaa oo wixii cabdi u shaqeeyay ayaa 50% leedahay unlimited matching bonus marka waa unlimited matching bonus waxa weeyaan in qofkii macnaha hadii ilaa levelskii ka sii hooseeyo qofkii directing ahaa sidoo kale lacag helaysid weeyaan marka eelafkee table ayaan ku arki doonaa hoos ayaan ku arki doonaa waa sharaxayna haddii aan leedno marka wuxuu ku leeyahay waa inaa maxaan ku yiraahdaa darajo gaartaa si aad dadka aad keentay iyo iskuwa ay keeneenba aad maxay lacag uga samaysid waa yahay waa kana marka tablekii qofka adiga tooska u keentay oo adiga ka talaalan wuxuu noqonayaa first generation yani waa dadkii koowaad adiga aad keentay first generation marka waxa weeye bishii wuxuu shaqeeyaa 50% baa leedahay waa aniga sheegay oo ira cabdi hadduu $100 shaqeeyo 50 baa adiga lagu siinayaa cabdina 100kiisa uu qaadanayaa asaga laga jari maayo darajada silver marka aad gaartid qof kasta oo dadkii adigu aad keentay oo ka talaalnaa oo silver gaaray waxaad ka qaadanaysaa 10% baa ka qaadanaysaa dadkii marka adigu aad keentay dadka ay keeneen haddii silver ay gaaraan dadka qof kasta oo silver gaaray waxaad ku yeelanaysaa 10% asna markii gold aad tahay waxa ku sii furmaysaa dadka adigu aad keentay haddii qof kamida gold uu gaaro 5% baad leedahay dadka aad keentay kuwa ay sii keeneen haddii oo generationka labaad ah haddii uu maxaan ku yiraahdaa uu gold gaaro 5% baad ku leedahay platinum dadkii aad keentay haddii qof kamida uu platinum uu gaaro 5% baad ku yeelanaysaa kuwa ay sii keeneen oo second generation kana 5% baad ku leedahay wixii maxaan ku yiraahdaa platinum gaara sidoo kale generationkaaga saddexaad
halkan waa ka soo gudbay generation-kaaga saddexaad haddii qof ka mid ah uu gool gaaro waxaad ku yeelanaysaa 5%. sidoo kale platinum-ka haddii generation-kaaga saddexaad qof ka mid ah uu gool gaaro waxaad ku yeelanaysaa 5%. generation-kaaga saddexaad dadka ay keeneen oo generation-kaaga afraad ahana qofkii platinum gaaro sidoo kale waxaad ku yeelanaysaa 5%. diamond-kana godadkoo dhan ayaa lagu furayaa oo waxa weeyaan dadka adigu keentay hadday diamond gaaraan 3% baa yeelanaysaa. dadka keentay kuwa keen hadday diamond gaaraan 3% baa ku yeelanaysaa. all diamond ku jira weeye, diamond-ka meesha ku jiro dhan weeyaan, hal qof kaliya maaha. generation saddexaad 3 baa ku yeelanaysaa 100%. ka saddexaad kuwa keenaan maahane kuwa ay keenaan haddii ay gaaraan diamond hadday gaaraan 3% baad ku yeelanaysaa. kuwa afraad kuwa ay keenaan haddii ay diamond gaaraan sidoo kale 3% ayaad ku yeelanaysaa. waa tii hadda aan lahayn 5 generation deep-ka aan lahayn weeye, 5 generation ayaad ka heli karaysaa lacagta bilaha. okay soo dhaafay retail commission baa nagu xigto. retail commission waxa weeyaan tan waa product-ga ayay qosaysaa. product sidoo kale waxa weeyadana waxaad wax ka helaysaa waxa weeyaan earn from your retail customer purchases. yani salaana kale qof adiga hadda ka talaan hadii alaab uu iibsado kale waxa weeye 50% ayaa ka helaysaa qofkaas. oo hadii waxa weeye qofku alaab uu $50 iibsaday $25 baa laga siinaya adiga. sidoo kale darajooyinka ayay ku kala xiran tahay halkan wuxuu kale qualify to earn from the retail customers of your retailers and their retailers 10 levels deep. ilaa levelkaaga 10aad ayaa hadii ay wax iibsadaan sidoo kale wax ka heli karaysaa. marka halkan waa kana tusaale ahaan kale aan rank marka tahay 50%, marka baronsan tahay qofka koobaad oo iibsada 50%, qofkaas qofka ka talaan haduu iibsado 10%. يعني level kasta oo levelkaaga uu ku siyaado oo ranking aad samaysid waxa badan iyo commission-kaaga ayaa badanayo. level baa ku soo furmayo, level baa ku soo furmayo, level baa ku soo furmayo. tan marka waxay qosaysaa waa product-ga weeyaan. influencer bonus-ka wax weeyo qofkii inuu maxaan ku iraado alaab badan u salahaan kale uu soo gato oo macnaha waxa weeyaan uu meel maxaan ku salahaan kale alaab badan uu iibiyo alaabtaasna waxa weeyaan markaas uu lacag ka sameeyo. salahaan kale marka ugu dambeeyay xataa 100% ayuu ka helaya. salahaan kale shay haduu $100 ka bixiyo heer waxa uu gaarayaa shayga $100 xataa waxa weeye la siiyo oo commission ahaan loo siiyo. marka hadda wuxuu ku leeyahay earn up to 100% of the difference between the member price and retail price. member price waxa weeyaan waa taan soo arkaynay oo qiimaha waxa weeye retail price-ka iyo member price-ku way kala duwan yihiin. member price-ku waa qiimo yar, retail-kuna waa qiimo hoose. salahaan kale shay hadii hadda waxa weeye $10 uu ahaa retail price-ka, member price-ku wuxuu noqonayaa $4 ama $5 buu noqonayaa. marka kala jarka labadaas la kala jaray ayaa waxa weeye adiga commission ka helaysaa weeyaan. marka tan waxay qosaysaa sidoo kale product-ga ayay qosaysaa. tusaale ahaan marka qofka haduu sales uu iibiyo 2500 oo kale tusaale ahaan baa iibisa alaab ah, marka ugu horeysa waxa ka qaadatay 50% baa ka qaadatay direct-ga. additional-ku wuxuu noqonayaa 10. marka cotton-kaagi oo 10 ka lagu daray total-ka waxa helaysaa 60% baad ka heshay. all 50 baa ka qaatay marka 5000 alaab iibisid 20% baa lagu darayaa 70 baa isku noqonaya commission-kaaga guud. 10 marka iibisid alaab ah 30% ayaa additional commission laga dhigayaa. cotton-ki marka waxa ku dadhaa 30, 80% ay wuxuu ku noqonayaa total commission-ka ay heshay. 25 marka iibisid alaab ah 40% ayaa waxa weeye commission additional commission-ka laga dhigayaa oo cotton-kaaga hore oo markii hore ka heshay oo tooska ahayd ayaa 40 kan ku darsanaysaa. deetana 90% ayaa waxa weeye commission-ka noqonaya. 50000 marka iibsid alaab ah oo lacagtooda 50000 ay tahay soo xariisid 50% iyo cotton-ka hore waa imise 100% baa marka dambe helaysaa. intaas marka waa product-ga. diamond bonus pool-ka waxa weeyaan qofka marka uu gaaro diamond-ka uu gaaro shirkadda waxa ay bisha soo xareysay ama dawaha ka soo xareyso ama affiliate market ka soo xareyso malaayiinta dollar ay soo xareysay ayaa 2% laga siinaya. 2% ayaa laga siinaya. sidoo kale 2% ayaa waxa loo qaybinayaa dadka gaaray diamond gaaray ayuu marka 2% la qaybsanaya. yani bil kasta intaas uu helaya. marka meesha aan u socono kulligeen bustuu inoo yaala waa inaan diamond ka gaarno weeyaan.
الفاتحة صوم بل إن شاء الله. So 2% of the total sales or membership and the product sales get divided evenly between يعني واتاد شيء يعني بقول كيبا لبا أي وحول لقي وحال ستوص لو قيمة يا دتك جاري محن كلها دائما كجاري يا بقول كيبا لبا وحال لو قيمة دتك دائما كجاري لعقتها كسر حروتي بشاس كمبنيجا يا لو قيمة يا بقول كيبا لبا مركز هاي ولا سينا يا بالكست مركز تنوع ويان وراnkii sida loo gaariyay weeyaan rankii iyo sida loo gaariyay darajooyinka sida loo gaariyay weeyaan marka bronze waxa lagu gaaraa bronze waxa lagu gaaraa qofka inuu laba qof iska talaalo marka laba qof iska talaashid waxa noqonaysaa bronze oo ah darajada koobaad ee company-ga silver saa u noqotid waa inaad 10 qof iska talaashaa 10 qof waa inaad iska talaashaa teamkaagana uu 10 uu ahaada maxaan ku iraahdaa teamkaagana 20 uu ahaada ama inaad soo saadid saddex lugood waxaan ka wadaa saddex qof oo adiga ka talaalan oo qofkiiba laba qof uu haysto waa inaad iska talaashaa teamkaagana inuu noqdaa 20 waa inuu noqdaa taas ayaa waxaad ku noqon kartaa silver tamarka waxa weeyaan waa platinum-ki weeye qofku waa inuu 30 qof iska talaalaa maxaan ku iraahdaa diamond-ki weeye sorry qofku waa inuu 30 qof iska talaalo teamkiisana uu gaaraa 20 ama inuu soo saaraa saddex qof oo silver ah teamka guudna uu gaaraa 100 platinum-ka waxa weeye inaad iska talaashid 100 qof teamkaagana uu gaaro 500 ama inaad saddex lugood oo silver ah oo diamond ah gold aan ka wadaa ama inaad saddex lugood oo gold ah aad soo saadid teamkaagana uu yahay 500 diamond-ka waxa weeye inaad soo saadid waxaan ku iraahdaa saddex lugood oo platinum inaad soo saartid teamkaagana uu noqdo 2500 markaas aad waxaad noqonaysaa diamond marka active members-kan waxa weeye members-kaas waa in ahaadaan kuwa markaas lacagta bixiyay oo active ah oo lacagta member-ka bixiyay marka waxa sababta marka top 5 reasons to join marka shanta sababood ay ugu soo biirisay Live Good maxaa weeye we just officially launched globally caalamka waxa weeyaan oo dhan ayaa waxa weeyaan shirkaddan u gaartay oo ma aragtay waxa weeyaan looga faa'iideystay oo ay gashay oo si global ah oo adduunka oo dhan ayaa waxa weey ku faaftay number 2 waxay ku leeyihiin high quality and a very affordable health product يعني product waxa weeye tayadu ay sareyso qiimahoodana uu hooseeyo ayaa waxa weeyaan ayay haysaa oo diyaar ay kula tahay oo aad ka helaysaa weeyaan tan saddexaad waxa weeye marketing system kaas oo waxa weeye ka caawinaya oo soo jiidanaya oo ina marketing sameeyay ka caawinaya oo ina maxaan ku yiraahdaa wax weeyaan aad heshid asxaab ka caawinayo tools ama qalab ku sahlaya waxa weeyaan sidoo kale iyo training ba inta waa helaysaa tababaro inta waa helaysaa kan kalena waxa weeyaan waa simple waa wax aad u fudud waa isdiiwaan gali laba qof iska talaal commission-kaaga guro level maxaa darajo gaar waa waxa simple ka weeyaan powerful awood beelada waa u jeedaa dad baa lagu siinayaa oo lagu hoos dhigayaa lucrative and pay plan waa wax macnaha cad oo waxa weeye banaan taala oo qorshaheeda u jeedid iyo maxaan ku iraahdaa habka ay wax kugu siinayso ninka marka waa CEO-ga weeye company-ga ninka ma aatay CEO-ga ka weeyaan waxa la yiraahdaa Ben Galniski miyaa la yiraahdaa ninka marka khibrad wuxuu leeyahay baa lagu yiri 20 sano ah oo shirkado hore ayuu ninkan soo lahaa oo company-ga ma aha company ugu horeeyay shirkado hore oo xagga nutrition-ka ayuu soo lahaa oo muddo ka soo shaqeeyay ninkan kale waa director of product development waa xagga ma aragtay product development-gooda weeye gabadhan waa xagga product education-ka weeyaan yani product-gan waxay yihiin iyo caafimaad ahaan ninkana waa suuqgeeyaha product-ga weeyaan marka waxa la yiraahdaa are you A B or C saddexdan kee tahay baa lagu yiri I want to become an affiliate member waxaan rabaa inaan noqdo qof suuqgeeya ah oo shirkadda ku soo biiro shaqaysta oo hore u socda I want to become a member inaan member iska ahaadaan rabaayo shirkaddan wax intaan ku soo biiro inaan halka bustaha iska dhigto waxa ay siiso iska iimaansado oo cidba aan keenin I want to become a retail customer inaan waxaan rabaa aan noqdo qof macnaha dawada ka ganacsada kaliya aan noqdo
saddexdaa kee tahay baa lagu yidhi marka adigu waa kala dooranaysaa kullaaba waa lagu yidhi qofkii adiga waxa weeye soo casuumay ha ogaado kaa tahay marka aad dooratid waxaa leedahay anigu waxaan rabaa inaan noqdo dawlad kiyana xaysiiyo war maya waxaan rabaa inaan waxa weeye iska fariisto isdiiwaan geliyo $10,000 la baxo war maya anigu waa shaqaysanaya lacag baan rabaayo marketing baan samaynayo affiliate member baan noqonaya inaad tidhaahdid intaba adaa choice u leh aad baa u mahadsantihiin waa ku dheeraaday adinkoo raalliya waxaan kusoo wareejinayaa mikrofoonka injineerka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu